Waa qiso cajiib oo xanuun hooyo ideh ayaa la dhahaa. Qisadan ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Waa Leylada Nasraan channelka iga daawanaysiin waa Kalson Cooking Channel. Soo dhawaada wax walbo idinta wanaagsan walaalayaal. Nin ayaa wuxuu soo galay supermarket-ka inta uu ku guda jiray ama uu ka adeeganayay meesha uu wax ka gadanayo. Wuxuu dareemay inay haweeney daba socotay ilaa marka uu soo galay meesha uu alaabta ka gadanayay. Dabadeed wuxuu ku yiri, hooyo macaan, ma wax baan kaa caawiyaa? Waxay tiri, maya wiilkaygiiyo, waxaad u egtahay wiilkayga oo dhintay. Wiilkii wuu yara qiirooday, wuxuuna ugu jawaabay, waa sunnada nolosha. Maamadii waxay ka codsatay inanka inuu mar labaad hooyo dhaho. Wuu ka aqbalay codsigeedii wuuna dhahay. Kadib maamadii albaabka markay tagtay bay tiri, wiilkaygiiyo, suu yiri hooyo. Way ilmeysay. Haddana markay baxday buu 3 jeer si cod dheer ku dheehan tahay ku yiri, hooyo hooyo. Maamadii hooyo 3 jeer ku yiri. Maamadii iyadoo qiiroonaysa bay iska baxday supermarket-kii kana baxday suuqii. Wiilkii markuu u tagay xisaabiyihii supermarket-ka wuxuu ku yiri, alaabtaada waa $100, alaabta hooyadaa qaadatayna qiimaheedu waa $350. Markaas buu wiilkii yaabay oo yiri, yaa waayo hooyada sheegayso? Xisaabiyihii oo dhoola caddeyn wejigiisa ka muuqato ayaa dhahay, waa hooyadii aad hadda u qaylinaysay oo aad lahayd hooyo. Markaa hooyo ayaa tiri, wiilkayga ayaa lacagta alaabahan qaatay bixinaya. Waxaa la saaxiib iska dhiib lacagta hooyada ku adeegatay. Cajiib. Qisooyinka qaar waa qisooyin kala xanuun badan. Aaminaada qaarna dhibaatadan oo kale ayay ku keeni kartaa. Haddii aad channelka cusub tahay, subscribe saar. Hadda hore ila joogtane aad iyo aad u mahadsantahay. Sii share garee, like garee. Inta fiidiyowga mid la mid ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye.